daraasad ay shaacisay jaamacadda Stirling ee ku taala waddanka Scotland ayaa sheegaysa in ragga shactirada badani dumarka aad u soo jiitaan ayna ka helaan. Daraasaddu waxay daha ka qaadaysaa in ragga dabacsan ee qosolka badan ay yihiin kuwa ugu soo jiidashada badan dhanka dumarka. haweeney kastana ay ka eegayso ninka ay damacsan tahay in ay ka dhaxesho arrinkan. dhanka kale ragga adag ayay daraasadu leedahay ee aan lahayn dabacsanida dhanka qosolka iyo shactirada in aysan dumarku ka helin, balse waxa ay isla daraasadu cadaysay in raggu iyaguna aysan jeclayn dumarka shactirada leh ee si fudud kaaga qoslin kara, ayse ka jecel yihiin dumarka jecel iyaga in laga qosliyo. daraasadu waxa ay kale oo ay sheegaysaa in ragga muuqaal ahaan jirkoodu dhisan yahay inay habluhu aad u jecel yihiin oo ay indhahooda u roon yihiin. su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay, ma jiraan waxyaabo kale oo ay dumarku ku jeclaadaan ragga? Dabcan haa, waxaana ka mid ah ninku inuu damiir leeyahay, kaasoo iyagu ku jeclaadaan in uusan dayacinin oo damiirkiisu u diidi doono in uu dayaco oo dayaca ku daawado. waxay aad uga helaan runlowga runta u sheega ee aan kala gabanin xaqiiqada, halka beenaalaha ay aad u neceb yihiin. ninka koolkooliye ee sida ilmaha oo kale ugu naxariista waxay ka dhigtaan hadafkooda koowaad. ninka xikmadda leh ee caqliga u saaxiibka ah, midka naftiisa ku kalsoon, midka dadaalka badan sida uu naftiisa iyo kan qoyskiisaba u horumarin lahaa, midka ammaanada leh, midka shactirada leh ee si fudud uga qoslin kara, midka quruxlowga ah ee indhahooda u roon. tilmaamaha kale ay dumarku ragga ku jeclaadaan waxaa ka mid ah ninka gar kale, midka garbaha waaweyn, midka murqaha ku leh caloosha iyo cududaha, midka dheer ee joogga sare leh, midka leh codka weyn. waxay kale oo ay jecel yihiin codadka xamxamta ah ee hoosta loogu dhigo. waxay kale oo haweenaydu jeceshahay in ninku maamulan karo caqligeeda, sida in uu kula wareegi karo ammaan iyo u sheegidda hadallada ay jeceshahay. hal nooc oo keliya maahane way kala duwan yihiin hadallada ay ka hesho, sida faanka, jacaylka, ammaanta. daraasaddan maxaad ka faa'iiday? adiga iyo aragtidaadana nugula wadaag halka hoose ee faallooyinka.